maalin walba in gabdhaha iyaga baarlamaanka la qashqasho dhanno maaha boqolka 30 horta waa in miiska noo saaraa kursi gabaruleedan waa inaynu ku fadhiisan sideedaba kursi nileey waa inaan gabar ku fadhiisan waa inaynu ku fadhiisan gabdhaha 30 koodi waa la ka banaanka la dhigo prime minister kan waa u sheegaynaa waana ka baryaynaa inuu gabdhaha Soomaaliyeed xaqoodii halkaas ka dhigo oo lagu hadlin gabdhaha xaqoodii waxaan rabnaa inaan u mahadnaqno una duceyno prime ministerka xilka loo magacaabay إلهي إنه حل جودة تقدم نشرف وجول وحلكيس وجول إلهي إنه كان جاي وبرينا وحنا إلهي كبرينا من نمد الصومالي إنه سؤالش من نمد الصومالي إلهي إنه سؤالش صومالي ضد وضمده أو ولا أو صاحبه يعني وحنا عادي وبراجنا إلا كتايب قالوا سيدا الشريفون شيء صح وايد قبلها مرة وبراجنا وين سكرنا نايل إنه السوريان من نمد قبلها إنه السوريان taas ayaa muhiim ah kuraas waxay odayaasha bisha 20keeda in muxuu ahaa si xoog leh looga qayb qaato oo muxuu ahaa shirka laga qayb galo oo miiska loo garaaco oo muxuu ahaa taasna waa xoojina sababta si gabdhaha ay ku helayaan codkooda iyo muxuu ahaa soo muuqan lahaayeen aad ugu mahadcelinaa waxa aad u fiican waay yeesan noqon maanta kaliya shirka ma socdaan si gabdhaha iyo dadka isdhexgalkooda ugu fiicnaado xafiiska ra'iisul wasaaraha aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed marxalad gooni ah ku jirnaa anaga wadanka markii la yiraahdo maalin dhaweeyta markaan soo qado dagaalka markuu dhacay waa awoodi kari weyn inaan guryaheena ku jirno Maryam madaxa ku soo xiranay waa soo baxnay dhalinyaradii isdagaalaysan hor istaagnay waxaan ku dhahay aniga inta absas ku noqdo waxaan ku riyaa hooyo ma ku dhalin miya caruur ma liid miya xagee u qaxeena xageed noo qaxinaysa maxaad isu dilaysaan yaad u dagaalamaysan yaasa ka dagaalamaysan marka marxaladaas waxay ahayd oo na gaarsiiyay in wadankan xaalad adag aan ka soo baxnay marka isla hayn nidaam dawliya la helay dadku way isfahmeen waxba shaqeynaa nidaamka shaqeynaa in xabad la isku qaato xabad la rido xal ma ahayn idoo la heli kar marxalad kale inta oo xabada looga baaqsado waxaan haweenka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa in ay ka shaqeeyaan sidii arintaas u suurogeli lahayd waa ogahay oo gudaha kuma jirno laakiinse banaankan ka shaqeyn karnaa waxaan diyaarin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo haweenkeena dhan intii ka soo gaartay inaan maalintaas meeshay ku shiraayaan isugu nimaadno oo aanan ka kicin ilaa ay ka heshiiyaan ay go'aan wada gaaraan talada noo taala taasay tahay maxaa yeelay waxaan rabnaa raggeena inay heshiiyaan waxaan rabnaa madaxdeena inay heshiiso waxaan rabnaa Soomaaliya inay hor u socoto dib badan haysto oo meelo badan ka haysto Soomaaliya dhibkaasayto inaan u wada duubano oo ka wada shaqeyno saan dhibaatadaas uga bixi lahayn run ahaantii haweenka Soomaaliyeed waa kuwa laf dhabar weyn u ahaa taariikhda nabadeynta haday noqon lahayd xiliyadii burburka ama haday noqon lahayd hadda oo ugu dambeysay maalmihii ugu dambeeyay ee shaqaqooyinka ay ka socdeen magaalada Muqdisho haweenka Soomaaliyeed waxay habeen iyo maalin u taagnaayeen dhaxdan u xirteen sidii ay nabad magaaladani oo u sii ahaan lahayd isan xabad uga dhici lahayn ayagoo mar walba riskiga ugu daran qaadanay dhinacyada kala duwan la kulmaayay maadaama haweenku ay yihiin saameynta ugu daran ee hadii dib dhaco uu saameynayo waxa arkaysaa hooyooyinka haduu dib u dhaco guriga ayaga qaxaya wax walba dhibaatadii dhaawac ah noqoto dhimasho noqoto meel walba wax ka dhacaan waxa ugu badan haweenka Soomaaliyeed waxa rafaadka basic taabanaya ninkii dhintay wuxuu ka tagayaa waa hooyo iyo gabdho iyo caruur Soomaaliyeed dhammaan anagoo inta ka wada taxadareyna inuu wadankeena uu ka dhicin oo magaaladeena ay ka dhicin haweenku waxay garab buuxda siiyeen ra'iisul wasaaraheena qeyr Allah siiyo Maxamed Xuseen Roble oo aan isleeyahay run ahaantii waqti loo baahan yahay dalkan baa la keenay oo xaaladii taagneedna sida ay tahay uga soo baxay nabadeyntu markii hogaanku ay wanaagsan yahay haweenkuna waxay taladooda iyo tusaalahooda ay marsiin karaan sidii loo baahnaayo kale wixii tagay way tageen maanta alxamdulillah ciidamadii is hortaagnaa way kala dareereen magaalada waa nabad waxaynu sugnaa waa shirka la qabanayo 20 May waxa muhiim ah inaynu garab istaagno mudane Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraheena waa muhiim waa inaynu garab istaagnaa
waa inaynu garab soconnaa haweenka Soomaaliyeed haddaynu nahay ayaan dhaweyto meel aan wax u marnaan garan weyna been idin sheegi mayno waxaanu damacnay inaanu banaan baxno xabadaan ka baqnay waxaanu damacnay inaan wiilasha kala dhaxgalno naftaana u baqnay runta idin sheegeena laakiin maanta waxaan idinkaga mahad celinaynaa idnaana siiseen forum political space xafiiska naga wacdeen inaan idin hor fadhiisano aan saa isugu keenyarteen aan wada hadalno ayaa muhiim ah marka waxaan leenahay horaha aynu u soconno waxyaabo fara badan baynu ka hadalno nabadeynta mar walba dumarka qaybta nabadda wax ka qaadan jireen tan shirka hadda soo socday qoondadeennana miiskaas inaynu fadhiisanaan rabnaa ama aan idinku bannaan baxno ama idinka noo garateen fulinta hay'adda fulinta ugu sareysa dalka waa xafiiskiina idinkaga fadhinaa inaad noo wacdaan sida halkan inooga wacdayna xaggan inooga wacdaan leena idinka shirka hogaaminaya qaban qaabinaya marka intaas idinkaga baahanahay waana idin garab taaganahay aad baad u mahadsantihiin xafiiska ra'iisul wasaaraha waa xafiiska hay'adda fulinta ugu sareyso dumarkana aad ugu yar yihiin markay noqoto door hogaamineed markastana waxaa loo baahan yahay technicalka in la empower gareeyo bari iyaga unbaa siyaasadii doorkooda qaadan doono marka ha noqoto hadda gudiyada doorashooyinka la magacaabi doono waa in maamul goboleedyada madaxdoodii iyo dowladda dhaxabo ay xoog iska saaraan inay matalaad buuxa dumarka ay helaan ee kursiga maanta meesha wax lagu qaybsanayo mise lagu fulinayo doorashooyinkii inay gabdhaha door weyn oo muuqda ay ka qaataan taasna waa muhiim tan labaad gabdhaha dhalinyarada habaryaasheena iyo oo soo halgamina waa ugu mahad celinayna waxaan rajaynaynaa inay iyagana talaabooyinka soo qaadeen anigana aan hore u qaadi doono iyagana ay na garab qabtaan